cabshukuur ciidin maayirka berbera oo aan wax ka weydiinay isfaham waa la sheegay inuu ka dhex jiro maamulka magaaladaasi iyo qaar ka mid ah saxaafadda ka howlgasha ayaa sidan ku jawaabay saxaafadda waxaan la kulanay waxaan u yeernay inta badan propaganda wax la yiraahdo baa jirta oo halis ku ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa inoogu sheegay islaam ma nahay diinta inta ka hadashay fidnadu iyada dilka ka xun Ilaahay leeyahay alfinda taashadu min alqatl marka waxaan u aragnay anagu saxaafadda ka howlgasha degmada berbera ama gobolka saaxilba ka howlgasha waxaan u aragnay inay qaybta khalkhalgelinta iyo propagandada iyo kicinta dadweynaha inay ka shaqeynayso ee aan ka shaqeynin dadka wanaageeda iyo horumarkeeda aan ka shaqeynin iyaan u aragnay sida awgeed waxaan sugu yeernay saxaafadda gobolka heer gobol oo dhan joogto wixii joogay magaalada oo dhan ama jaraa'id ku qoro ama wasiir ha update gareeyo ama muraayad ha qaatay waxaan la kulanay sida oo soo fariisin waxaan ka shaqeynaa waajibaadkayga qaran wuxuuna farayaa waxa ugu horeeyaan ka shaqeynaa waa nabadgelyada way nabadgelyada wixii aan uga baqano ama cabsi uga dareeno nabadgelyada wixii khalkhal gelinaya de waajibaad qaran aan leenahay waan mareynaa marka waxaan idin sheegaynaa inaan nabadgelyada nala ilaalsan iskaga garab taagtaan oo ay nabadgelyada nagala shaqeysaan ayay ahayd sida awgeed waxay ballan qaaday inay nagala shaqeynayaan waxaan u sheegnay wararka qaar ya ayuha alladina aamanu in jaakum faasiqun binnabiyin fatabayyanu an tusibu qawman bijahalati ilaahi leeyahay soo nabi maxamed la hadlaya waxweeyaan wararka wixii qaranimadeena iyo jiritaankeena iyo dadnimadeena iyo dowladnimadeena wax yeelaya ina ka ilaalisaan xitaa hadduu run yahay baan ku niri xitaa hadduu jiro waxaan leenahay in qof muwaadinku wuxuu u soo dhimanayay u soo halgamayay u soo dagaalamayay inuu ku dadkiisa bulshadiisu ay nolol fiican oo raaxo leh ku noolaato ugu dambeyntiina maayirku waxa uu fariin u diray bulshada magaalada berbera oo uu ugu baaqay inay isgarab taagaan mashaariicaha iyo maalgelinaha caalamiga ah ee lagu horumarinayo nolosha dhaqan dhaqaale ee dadweynaha berbera